nabad ku seexo qabuurahaaga aniga ma degi doono ilaa intaan ka arkayo lafa badan oo dhiig ka baxayo oo weliba hilbowda ay ku dhagan yihiin waxaan kaloo rabaa inaan arko ku naagooda oynayo weliba asaay madax u saaran yahay iyo niman badan oo hilibkooda go'go'ay hadalkaas waxaa qortay naag uu qabay nin yahuudi ah oo diyaaradda ugu horreysay la safray oo suuriya aadaysay weliba taariikhdan waxay dhacday 1973 bishii koowaad shanteedii diyaarad nooca dagaalka oo leedahay yuhuudda ayaa soo baxday weliba Stockholm ayaa la dhihi jiray diyaaradda waxayna soo aaday qayb ka mid ah Suuriya weliba guriga baaritaanada caafimaadka wuxuu dhawaa Dimashq ayada inay duqeyso uma socon laakiin iska caabinta cirka Joolaq ayaa u diyaar garoobay in iska difaacaan diyaaraddan halkan tal ayaa lagu riday ugu dambeyn diyaaradiina way qarxaday pilotkii diyaaradda wadayay asaga waa uu ku dhintay diyaaraddii waxay ku soo dhacday qaybo ka tirsan Suuriya kadib meedkii waxaa laga dhaxelay diyaaradda waxaana gacanta u galay kuwa ka tirsan Suuriyaanka ninka pilotka waxaa la dhihi jiray Moshek Birak ninkan Israa'iiliyaanka ah waxa uu degnaa Australia waxa uu yimid Israa'iil markuu ugu horreeyay diyaaradda uu raacay ugu dambeyn diyaaraddii waa ay la qarxaday naagtiis waxay go'aansatay in ay u argudo laba mar ayay carabtii naagtii yahuudiga ahayd ay ka xanaajiyeen marna ninkeedii marna diyaaraddii laga qarxiyey marabasana xasuusnaada jabhadihii waxay ka mid ahayd falastiiniyiinta dhibaato badan u geysatay run ahaantii xasuuso badan ayay reebatay maadaama ninkeedii uu ka geeriyooday naagtan inta badan waxay qorsheyn jirtay dilalka qorsheysan oo weliba jabhadda xorinta ayay qayb ka ahayd ayada markaas kadib waxaa ogaaday arrinteeda Israa'iil runtii Israa'iil aad bay uga xumaadeen kadib waxaa dhacday in meel walba dhiig badan lagu arkay iyo hilbo badan oo meel daadsan runtii xabadda iyo colaadihii maynan qaboobin qaabkaas ay tahay iyadu hoosheeda ayay si hoose u wadatay meeshii ugu darneed ayay aaday yacni waxay la kulantay cali xasan salaama runtii ninkaas wuxuu ahaa amiirul axmar ayada markay musaadka u sheegtay in amiirka xasaa ay la kulantay musaadku way aamin waayeen waxay dhaheen anigu ma nagu ciyaaraysaa sababtoo ninkan in la arko aad bay u adkeed dadkana waa laga ilaalin jiray dabcan ninkan warbixin yuhuudda kama haynin yacni meeshuu joogo xitaa lama ogaan jirin laakiin ayada si fudud ayay u tagtay maalin maalmaha ka mid a markay la kulantay sawir ayay ka qaaday kadibna waxay u dirtay muusaadka runtii sawirkaas ayaa waxa uu bedelay nolosha gabadhan iyo ninkii amiirul axmar ahaa walaalayaal aan soo laabanno waxaad ilowdeen inaad subscribe noo saartaan waxaad naga daawanaysaan janalka youtube-keena raadka sirdoonka alaab youtube-kan waxyaabo badan oo arrimaha sirdoonka ayaad kala socon doontaan subscribe noo saara noo shargaraya muuqaaladiina laagtiina waa anaga dhiirgelinteenna maanta waxaan ka sheekeynaynaa amiirul muftiya runtii ayada haddii dokumentar laga heli lahayn dadku waxay u arki lahayn sheekadeeda malabaal waxyaabaha cajiibka waxaa ka mid ah in gabar carabeed in ay noqoto kuwa ka mid ah kuwa yuhuudda basaasiinta u ahaa 12 bishii koowaad 1939 Amina Daawud ayadu waxay ku dhalatay Jordan gaar ahaan Amman ayadu waxay ahayd gabar muslimad ah oo ka soo jeeda waddankaas aabeeda Daawud asagana nin kale muslim ayuu ahaa dahabka ayuu ka ganacsan jiray weliba asaga Afrika wuxuu ku lahaa meel dahabka laga qoto iyo sidoo kale diamondka badanaa dunida kale ma laga isticmaalin marka laga reebo wadamada Yurub hooyadeed ayadana waxay ahayd gabar caan ah oo runtii Urdan si fiican ayada loogu kasaayo ururka haweenka Urdan ayaa asaastay runtii waxay matashay ururka haweenka waddankaas waxbarashada ilaa heer jaamacadeed ayay ka gaartay weliba shahaadadeeda hooyadaas waxay ka soo qalin jebisay wadamada Yurub mid ka mid ah jaamacadaha ku yaalo gabadhan lagu magacaabo Amina ayadu waxay ka mid ahayd carruurta ay labadaas waalid iska dhaleen weliba u yareed si fiican ayaa loo soo koolkooliyey maadaama yaraanta guriga ay ahayd wax walba loo samey jiray basana ay isbarteen oo Falastiini ah akhbaar kale lagama hayo kaliya xasuus qorkeeda waxaa laga helay inuu Falastiini yahay ayada 3 sano ayuu ka weynaa wiilkaas reerkiis waxay u soo qaxeen Urdun weliba meel kaaga dhow meesha wax ka baranaysa gabadhan lagu magacaabo Amina runtii Amina waqtigaas dugsiga dhexe ayay dhiganaysay asagana mar walba albaabka ayuu saagi jiray si gabadha marka iskuulka ay uga soo baxdo oo indhaha oo la raaco xiriir jacayl ayaa dhaxmaray ilaa heerka dugsiga sare intay ka soo gaarisay kadib jacaylkooda markuu xoogaystay Baziina si fudud ayaa lagu waayay asaga kadib Amina ayada jacaylkii markuu ku xoogaystay waxbarashadeeda xoogaa galab ayay ku noqotay dugsiga sare si dhib badan ayay ku dhameysay ayada markaas kadib laba sheeko ayaan maqalnay midkood waxay ahayd in Baziin oo ka mid ahaa kooxdii
falaagadaha oo dib u xoreynta waddankooda yacni niidiis wuxuu geliyey in gabadh amiina iyo waddanka in ay muhiim tahay in waddanka loo dagaalamo xorriyaddana loo dagaalamo mid kalena waxay dhehaysaa in asaga uu gabadhan xoogaa dhaqankeeda uunan ka helin yacni inuusan jeclaysan laakiin gabadh ayadaa noo sheegtay waxay tiri maan anuu iskuulka u socda ayuu waddada iga hor yimid warqad ayuu isiiyey warqad wuxuu ku soo qoray yacni waxyaabo oo ayada jirkeeda iyo nolosheeda iyo qaabkeeda inuusan ka helin yacni inay ahayd gabar dhaqan xun uusan marnaba iyadii asaga aynan wax dhexmari karin markaas kadib ayada waxay nacday guud ahaan carabta waxayna tiri maalin maalmaha ka mid ah xasuusadeed waxay ku qortay adeerkayga janaalka ahaa hadduusan arrimahan soo fargashan lahayn aniga niyadjab kuma noolaan lahayn ayada nolosheeda waa ay bedeshay adeerkeeda ayay eedeysay midada kale ayada xoogaa waxay ku marsatay basam dad ma jiraan oo dhahayo yacni aniga dembiga ma gal lahayn heblo waa sababteed iska lahaa dartiisa waxaan u sameeyey marka ayada basaamay xoogaa yacni eed ka dhigatay midada kale aabaheeda xoogaa wuu ka xanaaqay arrintan jaamacad oo ku taala austria loo diray xaggaas ayaana waxaa loo go'aansaday in ay wax ka soo barto cilmi nafsiga kun sagaal boqol konton iyo toddobadii ayada markaas 18 sano ayay jirtay ayada markay baxday oo australia ay tagtay vienna aabaheed wuxuu u diray inay wax soo barato laakiin jawigeeda way bedelatay nolosha ayay ka dhacday micnaha dad badan oo reer galbeeda ayay baratay markaas kadib reer galbeedka ayay dhex gashay gabadhii sigaar cabo waa la baray nolosha dhan way ka dhacday xasuus qorkeeda waxay ku qortay waxyaabaas hadday ahaan lahayn aniga nolosheeda ma burburin lahayn waxaanoo dhan waxaa ka dambeeyey adeerkii janaalka ahaa iyo ninkii aan dunida u jeclaa ugu dambeyn waxay ku soo laabatay urdun markay ku soo laabatay iyadoo jaamacaddii soo dhammeeday basaam wuxuu u soo diray invitation arooskiisa runtii ayada amina way murugootay niyad jab ayay la kulantay kadib ayada waxay go'aansatay nolosheedu idil in ay beddesho buuggeedana xasuus qorka waxay ku qortay in wax walbo oo nolosheeda beddelay inuu basaam qayb ka ahaa maadaama jaceylkii uu ku booday ugu dambeyna uu guursanayo daawadayaal runta haddaa idin sheego anaga maba aaminsanin in basaam uu jiro yacni ayada waxyaabaha ay mala abaalatay oo keliya inuu yahay ayaan aaminsanahay markii invitationka uu keenay iyadu way baxday australia ayay tagtay waxay rabtay master degree inay australia ay ku soo diyaariso kadib gabar saara lahaayo oo australiana ayay xaggaas ka baratay saare xitaa waxay ahayd qof xag jira oo runtii muslimiinta aad u nacab kadib ayay isbarteen markaas kadib walaalkeeda ayay baratay yacni asagana wuxuu ahaa nin duuliye ah ninkana waxaa lagu magacaabaa moshek waa ninka bilaawka sheekada aan ka soo sheekaynaynay oo diyaaradda ay la qarxiisay sheekada hadday bilaabanaysaa amina moshek ayay baratay jecel ayay wada jileen runtii jaceylkii basaam ayayna ku ilowday waa iyada qaabka ay wax u qortay reerka amina waxay aaminsanaayeen in gabadhooda master degree in australia ay kusoo diyaarinaydo amina waxay moshek ka cusatay in shahaadada uu garab ku seeyo asagana waxa uu diyaariyey shahaado feyga yacni master degree aanan jirin kadib way soo qaadatay kun sagaal boqol lixdan iyo lixdii waxay ku soo laabatay urdun ayadoo wadato shahaado feega reerku way soo dhaweeyeen kadib ayadu waxay qorsheynaysaa inay u laabato australia si musheeg xiriir jacayl uu si dhex maro ama waxay qorsheynaysaa in yacni dhalasho been inuu asaga soo qaato intan uu yimaado laakiin intaas ma qorshinin waxa ugu muhiimsana waxayd isbitaal ayada inay dhisto maadaama cilmiga nafsiga ay soo baratay yacni waa u ogola sharciga in isbitaal ay furato laakiin dowladda urdun waxay ku xujisay in shahaadadan caddeynteeda ay la imaado yacni kadib isbitaalkan in loo aqbali doono laakiin iyada qorshe labaad ayay samaysatay oo ah plan b plan b-gaas wuxuu ahaa in familkeeda ay ka dhaadhiciso in australia u laabato kadibna ay soo samaysato warqadihii caddeynaysay in isbitaal ay furan doonto kadib vienna ayay imaaday moshek waxay go'aansadeen inay isguursadaan laakiin dhibka jira waxay ahayd ayada muslimad ayay ahayd asagana nin yuhuudi ayuu ahaa aan u laabano basaam buuggeeda xasuus qorka waxay ku qortay aniga inaan qofkan doorto basaam ayaa sababta iska leh aniga yuhuudda aad baan u jeclaaday waxaan aaminsanay inay yihiin dad wanaagsan carabtana macallimiintooda aniga waan nacay hadalkii ayay sii wadatay waxay kaloo sii dhahday eegaas ayaa nolosheeda xumeeyey ayada markaas kadib musheeg ayay israaceen kadib waxay tageen kiniisad ayada diintii way beddelatay oo yuhuudiyad ayay noqotay kadib way soo guursadeen amina magaceed waa la beddelay aniga musheeg ayaa lahay ayadii ninkeedu way soo laabteen waxay ku soo laabteen meel ka tirsan vienna ayada nolosheeda si hoose ayay u wadatay cid ogaatay ma lahayn familkeeda way la xiriiri jirtay waxayna ugu sheekaysay in jaamacaddii ay ka soo qalan jibisay inay ka ahayd macallimad ardaydan ay wax barto
1971 ayadoo way ka shibmaysaa maalin maalmaha ka mid ah hooyadeed iyo urur haween ayaa waxay joogaan meel xaflad runtii waa isku faanayeen waxay dhahayeen wiilkayga waxbarashada uu ku fiican yahay war gabadheeda ka daran gabadheeda xitaa jaamacadda Austria ku taalo ayay macluumaad ka tahay maamooyinka mid ka mid ayaa waxay tiri haddaba qaabkaas tahay wiilkayga maad macluumaadda gabadhaada aad ku xirtid hooyadu waxay tiri waa diyaar gabadheed amiin allah waxa raba hadda inaan ku xiro ugu dambeyn wiilka ayaa la wacay oo waxa la yiri macluumaadaas ayaan kugu xirinaa wiilkii wuxuu dhahay anaga jaamacaddeena macluumaad magacaas leh maba dhigto ayada ugu dambeyn familkeeda way ogaadeen inay naagtan nolosheeda bedeshay diinta inay bedelatay nin yahuudi inuu qabo runtii aabeeda aad buu u xumaaday wuxuu balan ku qaaday Vienna inuu ugu tagi doono kadibna uu ku dili doono ayadoo ogeed aabeeda waxyaabaan in uu sameyn karo ani ninkeeda mushag waxay ka codsatay in Israa'iil uu geeyo laba mid ayaa lagu murmay mid kood waxayd in gabadha cabsi ay aabeeda ka qabto in Israa'iil ay u tagtay sheeko kale waxay dhayso ciidamada Israa'iil waxa lagu amray dhamaantooda inay soo xaadiraan wadankooda in dagaal ay gal doonaan 1973 kadib 1972 mushag uu soo laabtay yahuudda ayuuna ku soo laabtay wuxuuna ka tirsanaa ciidamada cirka ee wadanka Israa'iil diyaarad madani ayuu wada jiray tababar ayaa la siiyay wuxuu ka mid noqday ciidamada ugu awood badnaa ee cirka kadib dulmaadkii kood markuu ka baxay sheekada bilowgeeda ayaaba lagu dilay marka idin kaga soo sheekeynay kadib ninkeeda markuu dhintay ayadoo way xanaaqday Amina waxay go'aan ku gaartay dhiiga ninkeeda in gantaalo laga sameeyo kadibna gabi ahaan carabta inay ku baabiiso museedka ayaa la shaqo jirtay si mutadawacnimo ah kadib museedkaaga way ka heleen in gabar 34 jira aad u qurux badan muuqaal ahaan carab weeg waliba wadata shahaado feega oo dhakhtarnimo oo psychology ahaan in lagu dabi karo wadamada carabta waliba si sirdoon ahaan ay ugu shaqeyn karto baasaboor Israa'iil mid Jordan iyo mid Australia ay wadatay runtii yahuuduna way ku farxeen gabar noocan oo kala inay heli kareen kaaga sii daran ayada Falastiiniinta aad bay u nacday oo nacib badan ay u qaaday iyo sidoo kale carabta qaybaheeda kala gedisan maadaama ninkeedii ay dileen